iyadoo wali lagu guda jiro hanaanka qaad gubista ee lagu madnuucay qaadka muddo 25 maalmood ah ayaa waxa maanta qaad tiro badan lagu soo qabtay degmada Baki ee gobolka Awdal. Qaadkani oo uu siday gaari laan kurusal ah ayaa waxa lagu gubay degmada Baki waxaana goobjoog ka ahaa goobtaasi lagu gubay qaadka. Maayir ku-xigeenka degmada Baki taliyaha ciidamada ee degmadaasi taliye ku-xigeenka qaybta booliska ee gobolka Awdal barasaab ku-xigeenka gobolka Awdal. Ugu horeyn waxa halkaasi ka hadlay oo ka warbixiyay qaadkani la soo qabtay maayir ku-xigeenka degmada Baki Dayib Xasan Raaga Cudade iyo taliyaha ciidamada booliska ee degmadaasi waxna hadaladoodii kamid ahaa. Waxaan ognahay jaadkan oo hanti ah oo halkayga dambeysay yaala waxa loo diyaariyay in la gubo. waxa loo gubayaa ma nacayb kale ma cadaawad kale waxa weeyaan in la badbaadiyo fa badan oo dadka reer Soomaaliland taasoo ay ku taliyeen dhaqaatiirtu iyo aqliyaasha iyo odayaashu inta ku taliyeen in jaadkaasi uu ka mid yahay waxyaabaha dhibaatooyinka inoo faafinaya. Dawladdu waxay go'aamisay in badan lagu canaantay waxay go'aamisay in la joojiyo jaadka. haddana dadkii ku canaanay dawladda in jaadka la joojiyo waxay bilaabeen in la ku tarbaaniyo. jaadkan waxa laga soo qabtay bariga degmada Baki iyagoo howlgal ku jira ciidanka booliska. dadka reer Baki kuwa buuraha jooga kuwa imika nala jooga kuwa maqan dhammaantood waxaan ka codsanaynaa inay kala qayb qaataan. waxa jira 7 jid oo ku furan degmada Baki oo halka uga baxa bari ilaa xeeb ilaa Hargeysa xaaladaas ay jirto taasoo Soomaaliland ba haysata oo hawlo culus oo kulay laga horjeeda ay tahay sidii hawlaha aan qaranka ula qaybteeda uga qayb qaadan lahayn ayuu arrinkaygu yahay sidaas aan hawsha ololaha ugu jirnaa. sidoo kale iyaguna waxa dhankooda halkaasi ka hadlay taliye ku-xigeenka qaybta booliska ee gobolka Awdal iyo barasaab ku-xigeenka gobolka Awdal waxaana wax laga xumaada ay ku tilmaameen hantida ay shacabka gobolka Awdal ay iska khasaarinayaan waxaana hadaladoodii kamid ahaa. maanta bishii 13 waanu joognay degmada Baki oo noo tagnay hawlgalkii ciidanku ay ku soo guuleysteen inay soo qabtaan gaari laan kurusal oo xambaarsan qaad tiradiisu dhan tahay 7 jawaan 6 jawaan iyo badh. qaadkaas oo tiradiisa markaanu tirinay imika naagteeda ka muuqda 5 jawaan waxay ahaayeen qaadka waaweyn ee loo yaqaano kiilooga nooca jabiska loo yaqaano oo 15 tiro guudna waxay noqonayaan 75 kiilo. jawaanka kale iyo jawaanka barkiisuna waxa ku jiray kontaroor duuf oo qaadka loo yaqaano mijaha ah oo isagana marka halkii marduufa 4 mijood yihiin noqonay 200 mijood. waajibkii yaa amartii madaxda sare ee qaranka iyo madaxda sare ee booliska nafartay annagoo gudanayna waa maalintii 10aad ee aanu gubno qaad mana noqonaysa hawl aanu ka daalanay ilaa inta ay waajibkaasi nasaaran yahay ee waqtigii loogu talagalay gaarayso waanu wadayna. marka dadka kale aan walaalaha nahay ee ku hawlan soo qaadista ama soo xawilista qaadka waxaan uga digaynaa waa in la darayaala iska dhamaynina shilinka u tuldho shilinkiina iyo dadkiino haysta. runtii aad baan waa wax lala yaabo runtii markaad eegto waa faa'iido laga helaya waxa inta jab iyo dib ay la maray baaba ka badnaanaysa runtii markaan eegno waa dhagti fiya xaraaraha aysan dadkan wax dhibays. marka bulshadana waxaan uga digaynaa on mar labaad iyo mar saddexaad uga digaynaa si horeyna looga digay. Sikari Cabdi Sheekh Faarax Sikari Saxane telefishinka madaxa banaan ee TV magaalada Boorama.